Isaias Afwerki waxa uu magaalada Asmara ku dhashay labadii bishii February ee sanadkii 1946 waxa la sheegay inuu wax ka bartay dugsiga sare Prince Makanen. Horaantii sanadii 1960 ayuu ku biiray dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee ardaydii Eritrea. Sanadkii 1965 ayuu waxbarasho ka bilaabay kuuliyadii engineering-ka ee jaamacaddii Haile Selassie oo hadda la yiraahdo Addis Ababa University kuna taala magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia. Bishii September ee sanadkii 1966 ayuu Afwerki iskaga tagay jaamacaddii Haile Selassie wuxuu ka baran jiray waxana uu socdaalay magaalada Kassala ee wadanka Suudaan oo uga sii gudbay magaalada Asmara si uu ugu biiro jabhaddii xoreynta Eritrea ee magaceeda loo soo gaabin jiray ELF. Dowladda Shiinaha ayaa hub fudud iyo lacag siisay dagaalyahanadii ELF waxana Afwerki uu ka mid noqday koox yar oo Shiinaha la geeyay halkaas oo uu ku soo qaatay tababar kooban oo military. markii uu soo laabtayna waxa uu noqday madaxii siyaasadda ee xafiiskii ELF ay ku lahayd gobolka Hamaseen. door muhiim ah ayuu ku yeeshay isu keenidda qaybihii kala duwanaa ee jabhadda ELF oo hogaankoodu aanu joogin meel isku mid ah. golaha sare waxa xaruntiisu ay ahayd magaalada Qaahire dalka Masar halka taliska ciidamaduna uu deganaa magaalada Kassala ee wadanka Suudaan. Isaias Afwerki waxa uu ku biiray guutadii uu hogaamin jiray General Abraham Tiwolde ee ciidamada Ethiopia kula dagaalamaysay aagii shanaad ee waqooyi bari. markii Tiwolde dagaal lagu dilay ayaa Afwerki waxa uu hogaanka u qabtay ciidamadii jabhadda ee ku sugnaa waqooyi bari Eritrea. bishii August ee sanadkii 1971 ayaa koox dhalinyaro oo ka mid ahayd jabhaddii ELF waxa kulan ay ku yeesheen magaalada Telki ee xeebta waqooyi ee badda Cas. waxaanay sameeyeen inuu loodan jiray selfie nafsineed oo macnaheedu ahaa ciidankii xoreynta shacabka oo magaciisa loo soo gaabiyay BLF. waxaana ay doorteen 5 hogaamiye oo ka mid ahaa Isaias Afwerki. bishii October ee isla sanadkaasi ayaa kooxdani waxay sameeyeen guddigii qortay dastuurkooda oo loodan jiray Ninaan Alamenaan oo macnaheedu ahaa annaga iyo ahdaaftayada. waana go'aankii urur siyaasadeedka BLF uu kaga dhex abuurmay jabhaddii ELF. jabhaddii ELF sanadkii 1977 ayaa waxay isugu yimaadeen kulankoodii ugu horeeyay waxaana Isaias Afwerki loo doortay ku-xigeenka xogayaha guud ee jabhadda. xilligaasina waxa soconayay dagaalkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia. jabhaddii xoreynta shacabka Eritrea ee magaceeda loo soo gaabin jiray EPLF ayaa waxay dagaal adag ka waday waqooyiga Ethiopia oo hadda loo yaqaano Eritrea iyadoo taageero ka heli jirtay wadamada Soomaaliya, Suudaan iyo Masar. Isaias Afwerki iyo Mele Zenawi oo madax ka ahaa jabhaddii Tigrayga TPLF markii dambena Ethiopia madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka noqday ayaa waxay ku wada noolaayeen guri ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho sanadii 1980 waxaana ammaankooda sugi jirtay hay'adii nabad sugidda ee Soomaaliya ee magaceeda loo soo gaabin jiray NSS iyadoo la siiyay baasaboorro Soomaaliya oo ay ku safri jireen iyo waliba adeeg isgaarsiineed ay kula xidhiidhi jireen. saraakiishooda dagaalka kula jirtay ciidamadii nidaamkii shuuciga ahaa ee Ethiopia loo yaqaanay dergiga. sanadkii 1987 ayaa Isaias Afwerki waxa loo doortay xogayihii guud ee jabhaddii Eritrea ee EPLF isagoo sanadkii 1991 madax ka noqday dowladii farsamo ee Eritrea gaarsiisay aftidii madax banaanida ee sanadkii 1993 oo qaramada midoobay ay korjoogta ka ahayd. waxaana markii dambe uu noqdayba madaxweynihii ugu horeeyay Eritrea ay yeelato xilkaas oo uu hayay ilaa hadda. sanadii ugu horeeyay dowladdiisa waxa uu si weyn wax uga qabtay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada oo uu gaarsiiyay guud ahaan gobolada dalkaasi. jabhaddii xoreynta Eritrea ee EPLF oo ahayd tii ugu awoodda badnayd jabhadihii dagaalka kula jiray dowladdii uu hogaamin jiray Colonel Mengistu Haile Mariam ayaa qabsatay inta badan dhulka Eritrea sanadkii 1990 waxaana markaasi kadib ay u jeesteen dhanka koonfureed iyagoo istaageersanaya jabhadda Tigrayga ee TPLF ilaa markii dambeba ay qabsadeen sanadkii 1991 magaalada caasimadda ee Addis Ababa. isla markaasina ay meesha ka saareen dowladdii shuuciga ahayd ee Ethiopia. jabhaddii EPLF ee Eritrea ayaa magaceeda waxa lagu bedelay markii dambe xisbiga shacbiga ee dimuqraadiyadda iyo cadaaladda ee magaciisa loo soo gaabiyo BFDJ. madaxweynihii hore Mareykanka
Bill Clinton ayaa afweerkii waxa uu ku tilmaamay hogaamiye Afrikaan oo cabqari oo u shaqaynaya dadkiisa. sanadkii 1998 ayaa waxa uu dagaal dhex maray Ethiopia iyo Eritrea, dagaalkaas oo markii hore u dhaxeeyay ciidamada Eritrea iyo jabhadda Tigrayga dhul ay ku muransanaayeen labada wadan. dagaalka ayaa xoogaystay sanadii 1998 iyo 2000, waxaana labada wadan kaga dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 oo qof. colaadda u dhaxaysay wadamada Ethiopia iyo Eritrea kuma ekaan xuduudahooda oo kaliya ee waxay u gudubtay geeska Afrika. Eritrea waxa lagu eedeeyay inay taageertay islaamiyiintii qabsatay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sanadkii 2006, halka Ethiopia ay taageero ciidan u fidisay dawladii ku meel gaarka ahayd ee uu hogaamin jiray Colonel Cabdillaahi Yuusuf Axmed. ciidamada Ethiopia ayaa qabsaday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana markaasi kadib magaalada ka bilaabmay 2 sano kooxo islaamiyiin iyo dad shacab ah ay kula dagaalamayeen ciidamada Ethiopia magaalada, oo ugu dambeynna halkaasi isaga baxay sanadkii 2009. ku dhawaad 20,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. dawladda uu hogaamiyay Siyaas Afwerki waxa lagu soo rogay cunaqabataynta caalamiga, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu aasaasay guddiga cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea. cunaqabatayma Eritrea ay ku soo rogeen qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa sabab u noqday in dhaqaalaha wadankaasi uu liico, waxaana sii xumaatay xaaladda nololeed ee wadanka. 10,000 oo dhalinyaro oo isugu jira rag iyo haween ayaa iskaga baxsaday dalkani ku yaala geeska Afrika. inta badan dadkaasina waxay gaadheen wadamo ku yaala Yurub, laakiin xaalka ayaa si lama filaan ah isu bedelay mar kaliya kadib markii kacdoon ka soconayay wadanka dariska ee Ethiopia muddo 3 sano meesha lagaga saaray xukunkii Tigraygu awoodda badan ay ku lahaayeen muddada 27 sano. ra'iisul wasaarihii cusub ee Ethiopia ee la doortay bishii April ee sanadkii 2018 Abiy Ahmed ayaa baarlamaanka dalkiisa geeyay qaraar uu kaga codsanayay in la soo afjaro colaadii dalkiisa ka dhaxaysay Eritrea, isla markaasina Asmara loo celiyo magaalada Barme oo guddigii calaamadaynta xuduudda ee qaramada midoobay sanadkii 2002 ay u xukuntay Eritrea, laakiin Ethiopia ay haysatay. Abiy Ahmed ayaa bartamihii sanadkaasi 2018 waxa uu ka degay magaalada Asmara. magaalada Addis Ababa booqasho taasi lamida waxa ku tagay madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki. heshiiska nabadeed ee ay gaadheen labada wadan ee dariska ayaa waxa uu keenay in Abiy Ahmed sanadkii 2019 lagu abaalmariyo biladda nabadda adduunka Nobel Peace Prize ee lagu bixiyo wadanka Norway. hogaamiyaha wadanka Eritrea Siyaas Afwerki waxa uu ku hadlaa luqadaha Tigriya ama Tigray, af Carabiga iyo Ingiriisiga, waxaana qoyskiisu asal ahaan ay ka soo jeedaan qoomiyadda Tigrayga ee degta wadamada Ethiopia iyo Eritrea. waana aabba dhalay 3 caruur oo kala ah Abraham, Elsa iyo Berhain, oo ay u dhashay xaaskiisa oo la yiraahdo Saba Hayle oo isguursadeen sanadkii 1981. Siyaas Afwerki waxa dawladdiisa lagu eedeeyay in xukuumadda Ethiopia uu hogaamiye ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku taageertay dagaalka ay kula jirto falaagada Tigrayga TPLF, dagaalkaas oo bilaabmay bishii November ee sanadkii 2020. waxaana ciidamada Eritrea qaramada midoobay iyo hay'adaha xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen in tacadiye ay ka geysteen gobolka Tigray. Siyaas Afwerki waxa la sheegay inuu xiriir adag la leeyahay Israa'iil, iyadoo markii yarun xukunka uu hayay sanadkii 1994 xanuun miirdoonsoon ku riday oo la sheegay inay sababtay kaneeco qaniintay lagaga daweeyay Israa'iil. Afwerki iyo xukuumaddiisa waxa lagu eedeeyay tacadiye badan oo ka dhana xuquuqul insaanka way u geysteen dadka shacabka ee reer Eritrea, iyadoo kumanaan qof ay ku jiraan xabsiyada. wadankaasi ayaa guud ahaan waxaan ka hawlgelin warbaahinta madaxa bannaan. tiro badan oo dada ayaa la sheegay inaan la ogeyn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. 10,000 oo qofna wadanka ayay uga carareen cabsi iyo cagajuglayn.